diyaaradani oo ah Boeing 737 ahna nooca rakaabka qaada oo leedahay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa burburtay xilli ay ku kala gooshaysay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi caasimadaha wadamada Kenya iyo Ethiopia. Ay sheegeen mas'uuliyiin u hadlayay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa xaqiijiyay inay diyaaradani la rumaysan yahay inay saarayeen 149 qof oo rakaab ah iyo 8 kamid ah shaqaalaha ka howlgala diyaaraddaasi. Haddaba afayeen u hadlayay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa sheegay inay diyaaradani burburtay maanta oo Axad markii ay saacadu 8:40 daqiiqo oo barqanimo wax yar kadib markii ay ka soo duushay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia. Hadalkii ugu horeeyay ee ku salaysnaa burburka diyaaraddan iyo shilka ayaa ka soo baxay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed, Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Ethiopia, isagoo uu tacsiyeeyay dadkii ku naf waayay shilkaasi isla markaana uu tacsida ku soo qoray qoraal uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. Daboor qoraal ay soo saartay shirkadda diyaaraddani leh ee Ethiopian Airlines waxay sheegtay in baaritaano iyo samata bixin ay ku socdaan halkii ay diyaaraddaasi ku burburtay oo u dhow magaalada Bishuta oo 60 kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia oo ah halka ay ka soo duushay diyaaradani. Weli ma ay soo bixin wax faahfaahin oo ka soo baxay tirada dadka ku naf waayay iyo ku waxyeeloobay isla markaana mana cadda waxa sababay burburka diyaaradani saaka shilka ku gashay duleedka koonfur bari ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia. Halkan ayaa sidoo kale lagu sheegay shaqaalaha shirkadda Ethiopian Airlines loo diri doono goobta uu shilku ka dhacay waxaana ay samayn doonaan wax kasta oo karaankooda si ay gacan geystaan adeegyada degdega ay ku hawlan yihiin hawlwareennada caafimaadka ee waqti xadarkani ku sugan goobta uu shilku ka dhacay. Beyango oo shirkadda samaysay diyaaradani ay Twitter-keeda ku sheegtay inay si dhow ula socotay xaaladda diyaaraddaasi tan iyo markii ay duulimaadada bilowday. Diyaaradani ay shirkaddaasi samaysay ee 737 Max ayaa ku cusub duulimaadada waxaana la daafuray sanadii 2016 waxaana duulimaadada Ethiopia lagu soo daray sanadii hore 2018 horaateedii. Diyaaradda isla noocaasi ah oo ay islamaysay shirkadda Boeing ayaa 5 bilood ka hor ku burburtay meel u dhow biyaha dalka Indonesia waxaana saaraa 190 qof oo rakaab isla markaana iyaguna goobtaasi ku naf waayay. Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa goobtaasi ku sii waajahan ilaa iyo hadda iyadoona ay dad goobjoogayaal ahi ay sheegayaan inay maqlayaan qarax aad u weyn oo meeshaasi ka dhacay isla markaana ka dhashay holac admin yahay waqti xaadirkaasi. Dadka diyaaraddaasi saaraa ayaa u kala dhashay 30 jinsiyadood balse weli lama hayo diiwaanka magacyada inta laba iyo inta dhidiga iyo sidoo kale weliba caruurta. Haddaba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliland isagoo ku hadlaya afka magaciisa ka dowladda iyo ka shacbiga reer Soomaaliland waxa uu dhambaal tacsiya u diray dowladda federaalka Ethiopia iyo shacbiga weynaha dalkaasi oo ka tacsiyadeenayo shilka diyaaraddaasi ee maanta ka dhacay dalkaasi oo ku burburtay diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 ahna nooca rakaabka qaada oo leedahay shirkadda Ethiopian Airlines iyadoo xilligaasi ay kala socdaalaysay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi saarnaayeen 194 qof oo rakaab ah iyo 8 kamid ah shaqaalaha diyaaraddaasi iyadoona sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta shirkaddaasi Ethiopia. Haddaba madaxweynaha Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici ayaa dhambaalkani tacsiya u diray dhammaan shacbi weynaha iyo sidoo kale dowladda federaalka Ethiopia shilkaasi ku yimid diyaaraddaasi iyo sidoo kale ummadaasi ku naf weyday shilkaasi diyaaradda. Soomaali Cabdi Axmed Karile, Kalsan TV, Hargeysa.